بسم الله الرحمن الرحيم ولما أركان وحان سلام يا أمد الصومالية ميل والبوا الدنيا دا كجوكتان دمانتين وحان هالكن مانتو أوجد دقيا شقولة دل أولوم ملاقي مدحوينها جمهورية الديمقراطية الصومالية مدن محمد عبد الله فرناجو oo dilkaas la qorsheeyay in laga bilowdo ku dhacay 15 bishan oo ka bilaabanayso maalinka Arbacada ilaa Abriil 15keeda wala sameeyay qaabkii loo dili lahaa oo saddex geesooda waxaase dhacday in ay sugayaan inta jaansiga ay ku dili lahaayeen waxaan rabaa marka inaan ugu digo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliyeed sirdoonka Soomaaliya oo ay ku jiraan kooxo nabadiid ah oo nabadiidka ka yimid oo la shaqeeyay nabadiidka wali iyo koox kalento oo sirdoonka Itoobiya ah saddexda geesoodkaas ayaa shirkaas sameeyay kooxda dumuljidiid oo wali madaxdeeda salka isku xiran oo laamaha amniga lug leh waxaa la qorsheeyay saddex nooc in lagu qaarajiyo in baabuurka miino lagu xiro in madaxtooyada dhexdeeda miino lagu xiro ama wadada ka soo baxda waxaa kaloo la qorsheeyay niman tuuta military aqabo oo hub wato inay jaansigaas haday helaan yar ka helaan inay iyagana ku xabadayaan xabad lagu dilo saddexdaas ayaan la eeganayaa oo fursadood waana la qorsheeyay marka waxa saddexdan loogu talagalay in adiga lagu qaarajiyo labada bilood inta jaansiga laga helayo sidiiba marka xil wareejinta ay jirto dad badan ay ku iimaanayaan xilliga dadka furaha badan ay ku iimaan doonaan ra'iisul wasaaraha aad xulan doonto oo la taliyaal fura badan iyo dad badan iyo odayaasha iyo baarlamaanka iyo dad badan aad tashi la sameynayso xilliyadaasi tashinka aan jirin adigana lagu arkayo nin ixtiraamaya shacabka iyo dadka inay ku yimaadaan ma aragtay ayaa jira waxaan rabaa marka shaqolkaas xataa qaar aaladaha wax basaasa sida baabuurtii hore ee madaxtooyada ku xireed ee wataan oo qaar xataa Unisom ay kala shaqeynaysa qaarkood oo waayo waxa Unisom xataa ciidankeeda aadiiday ayaa xataa luq leh waxaad marka kaga badbaadi kartaa saddex qaybood hadaa taladeeda yeesho number 1 in aad dalbato baabuur 4 ilaa 5 ah oo escalatorka loo yaqaan xabadaha aan karin oo aan taarga lahayn afartaasna ama saddexdaasna aad soo dejiso midoowiga lagu keeno sida aad u dalban karta adiga ku taala ha isticmaalin baabuurtii hore ee madaxtooyada ku jirtay xilka kula wareegayso waxaan kalantoon kula talinayaa madaxtooyada waa in aad codsataa marka aad la wareegayso in Unisom ka caawiyaan oo qalabkii lagu baaro miinooyinkii waxaas eedii wax urunaysana ay keenaan waxaan kula talin lahaa xataa alaabta taalo oo dhan banaanka ku tuur hal xabaha ka isticmaalin dhamaantood banaanka loo tarash gareeyo darbiyada iyo mugga dhan ee madaxtooyada dhul iyo badba in dhamaantood la baaro ayaan kula talinayaa waxaa kaloo jiro oo iyagana la isticmaalaya shaqaalihii hore saddex ciidamada waxaa la isticmaalayaa tuuto ciidamada ka mid ah oo la xiranayo militariga iskaga ka imaan jiray booliiska ama qolada nisa ha aaminin waxaad aamintaa oo kaliya oo daacad ku ah gaashaan darawallo cusub qaado oo gaashaan ka mid ah ha isticmaalin darawaladii oo kale waxaa labada bilood oo kale aan ka codsanayaa bullet proof inaad xirato oo qasban tahay afarta gaari ee kala nooca ahi mid hadii miinada jidka la dhiga xataa miduu yahay yaa la ogaanin waa in gaashaan ay wadataa nin miina baara oo wato saacadii mar walba gaariga gelin ilaa ha u sheegin gaariga aad gelayso saddexda midka aad gelayso xataa shaqaalahaada iyo securitygaada ha u sheegin ilaa aad ka magacaabayso waxaha amniga oo labada bilood la dhaafayo waxaha amniga aad ka magacaabayso masrakiilo lagu kalsoon yahay aad ka magacaabayso meeshana waa miinaysan tahay waa la isku xiran yahay waxa isku xiran sirdoonka Soomaaliya iyo nabadiidka iyo qoladii dumuljidiid iyo sirdoonka Itoobiya waxaan kula talinayaa sidii salfad kadir inaad samayso adiga oo Itoobiya ay joogin baadiyun ra'iisul wasaare ka ahayd Muqdisho waad ogeydeen nabadda iyo sida aad yeelayseen cid laga cabsi qaba ma laha nimanka Tigray baa la yiraahdaa inta ay dhulkaada nabad ku jiraan ama aad ku soo dhow yihiin
yihiin ayay nabadi kuu jirtaa maalinkay kaa fog yihiin ood iska moostana maalinkaasay nabad kuu jirtaa Salva Kiir siduu yeelay madaxweynihii South Sudan oo kaleeto nimankani jaalle madaxweyne mooshin u gee baarlamaanka hal nin dhaafiyo Itoobiya oo dhan ka faa'iideyso awoodda shacabka aad leedahay awoodda shacabka taangiyadii Turkiga ayay isu dhigayeen cid ay kaga aybaysanayaan ma jiraan waxa Itoobiya ka qaadi kartana ma laha sida ugu dhaqsaha badan mooshin u gee baarlamaanka aad leedahay hanana dhaafiyo Itoobiya ciidankeedii iyadaba baarlamaanka ku dhawaaqo waan dhaafinaya wax ay idinka qaadi kartaan ma jiraan shacabka Soomaaliyeed baa ku rabtaagan baarlamaanka Soomaaliyeed baa maanta ku rabtaagan waxaan kula digayaa mar kaleento jaalle madaxweyne nimanka cutubka ee ku waardiyeynayo ee gaashaana isku day xataa in labada bilood iyaga ay ku joogan oo kuwa isbedelkoodii iyo controlkoodii ilaa aad ka helaysa sargaal ku controlo oo iyagana tashkiiliya oo wadaniyada bara waxa ay tahay ballanqaadyana u sameeyo inay weliga ahaanayaan ma aragtay ilaaladaada khaaska ah ma aragtay mushaar fiicanna aad u ballanqaado waxa weeye way miinaysan tahay meeshan ya nin kasta oo qaa'inu watan nin kasta oo tuug aba xamarka buuxo nin kasta oo shisheeye kalkaal baa ka buuxo oo cid kasta oo Soomaaliya leh waxaan kula talinayaa jaalle madaxweyne haddii taladeeda aad diido labada bilood waad ku tagaysaa shirqoolkan ee diyaariyeen waa lama arkaan waa wax aan ku sheegayo oo dhab ah oo garanti ah waxa ah isticmaaleen baabuurtii oo madaxweynihii hore isticmaalaya aaladaha ku xiran waa la socdaa dhaqdhaqaaqooda meel aadayaan sida ugu dhaqsaha badan week inta aadan bixin oo aad shaqo week in lagu keeno 5 iskaleerar oo kuwa xabada aan karin isku day adigana labada bilood isku day anti bullet breath inaad isticmaasho waxaan ku sheegayaa ciidamada militariga ciidamada Unisom iska ka imaanaya ha aaminin ciidamada gaashaan ee aad haysatay kaliya halka cutub xataa ha ogolaanin in cutubyada xataa ay kala bedesho labada bilood hadii awood u leeyihiin ha kula joogaano ayaan kula talinaya waxaase kula yahay mar kale isku hamiga ummadda Soomaaliyeed ka leedahayna uu fail garoobaya hadii aan sameeynin madax constitutionkii maxkamadii ugu sarreysay oo ka badbaad sharcigan ugu sarreysan oo ka badbaadinaysa cadawga Soomaaliyeed ee la isticmaalayo labada baarlamaan oo halka loo sameeyay in lagu cuno qofka wadaniga ee soo baxa adoo kale inta loogu talagalay hadii aad sameeynin constitution kaasna waa tagaysa halkaas samee waxaan kolon kula talinayaa ninka militariga ee dharka xiranayo PhD-ga ee caalimka ah ee taqiga ah ee hanti aan taabinin ra'iisul wasaare ka dhig ee ah ninka la yiraahdo baadiyo waad raagaysaa waana joogaysaa hamiga ummadda Soomaaliyeed way u hurgalaysaa ee shacabka Soomaaliyeed qof aan baadiyo oo ha isku dayin jaalle madaxweyne hadii aad isku daydo waxaan ku sheegay inaad mar habaabi doono talaabada ummadda Soomaaliyeed oo dhan maanta ay fiirinayso waa talaabada ra'iisul wasaaraha aad ku magacaabayso weeyo waxaan kaloo halkan kala talinayaa jaalle madaxweyne in nimanka amniga aad ka taxadirto oo shirqool ay sameynayaan cid nimanka sida aan wadada aan ku sameeyay hadii aad yeeli weydo waxaan ku sheegayaa jaalle madaxweyne inay dhici doonaan waa lama arkaan inta ka badan ma sii wadi karo anigana wanis dhiga lagu sameeyay xil wareejinta ayaan ka tagayaa xilka internet oo dhan codkaygana la maqlaynin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leeyahay nabad ilaahay inoo badbaadiyo madaxweynaheena dhamaanteen ummadda Soomaaliyeed Allah ha badbaadiyo jaalle madaxweyne mooshinka Itoobiya laga saarayo dalka baarlamaanka hordhig Itoobiya inta ay ka maqantahay nimanka Tigray baa la yiraahdaa inta ay ka fog yihiin baa nabadgelyo ku jirtaa Salva ninka dhijira Salva Kiir oo madaxweynaha South Sudan كم حمد أذيك ما أنت لب أودود بهيستها برلمان كي الشعب كوحو إثيوبيا كقاضي كرادة مجرد إذا إثيوبيا جوجم سومالينا مركاتبة إيجا إهد أذا رئيس وزراء كأها وأوغندا ومركز سوماليا قلب سدوا وحلقي شريف كي أذيك هذا هذين وح أمد الصوماليات هدي هالن أو إثيوبيا أدلك الصومالي وكسوية والله إنه سوى حبكوا هرجلين وأنا فايل بعد نقطن تنتادو هدي أنا طلع يلين تلا مدحوين أمني قادنا إلى الصو وكود دقي وحال لقرشية لبضع بلود دل كاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.